waxa la yiraahdaa jacaylku uu indhala yahay muuqaalkeenan maanta wuxuu si waadix ah u cadeynaya xaqiiqada weedha sheegaysa inuu jacaylku indhala yahay dadka qaarna waxa muhiim la ah inay la wadaagaan nolosha qofka qalbigiisa qanciya laakiin aan ahayn qof loo doorayo wixii la mid ah toddobadan lamaana aynu ka hadli doona maanta waa qaar aan isku dooran qurux lacag iyo wixii la mid ah balse waxay qalbigooda ku qanciyeen inaanay quruxda dhabta ahayn intaas waxaynan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa lamaanayaashii ugu yaabka badnaa uguna saameynta badnaa dunida ee ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan gabadhan Baya Kabra iyo ninkan la dhaho Jennifer waxa guurkooda lagu cabiray inay wax walba ka surtoobaan dunida waxaanay lamaanahan internetka ku qabsadeen ninkii foosha xumaa ee guursaday gabadhii quruxda badnayd waxaana isbarteen bishii January 2014 markuu ninkan Jennifer boqday magaalada ay degan tahay gabadhu halkaasna uu ku jeclaaday gabadha si gaar ah baanay u heshiiyeen waxaana isku guursadeen wadanka Ingiriiska waxaanu guurkoodaasi cadeeyay inuu jacaylku ka wan yahay quruxda iyo dhadhalaalka adduunyada Arif Ibrahim waa nin aanu dhererkiisu ka badnayn 106 cm oo dhigmata 1 mitir sidaa daraadeed waxa uu go'aansaday inuu kaligii noolaado maadaama uu dadka ka duwan yahay haddaba markii daadiisu ahayd 33 sano waxa uu helay qof jecel waxaana ahayd gabadhan labada jeer ka dheer waxaanu sheegay Arif inuu alla dhererkiisa ka qaaday balse uu imika u nool yahay sidii qof caadiya waxaanu sheegay inuu markii hore ahaa mid adduunka ka rajo dhigay haddana uu helay wixii ka maqnaa waxaanu qabaa gabadhan Aamina oo da'deedu tahay 22 sano markii horena qoyskeeda gabadhan u diiday inay guursato Arif laakiin imika waxay shacabka la wadaageen dhalashada cunugoodii koobaad waxaana sheegeen in jacaylka isku keenay awgii ay wax walba adduunyada yaala kaga kalsoon yihiin waxay dadku in badan raadiyeen nolol guur oo degan farxadna dhinac taalo waxaana helay noloshaas oo kale Xamdaan oo da'diisu tahay 30 sano iyo Nuura oo da'deedu tahay 29 sano waxaana lamaanahan saddexdii sano ee hore guurkooda ku wada noolaayeen nolol qurux badan oo farxada laakiin noloshii way isbedeshay markii Xamdaan xanuun kaga dhacay indhaha sidaana dhakhtarka lagu dhigay tabiibkiina markuu eegay dhibaatada Xamdaan waxa uu qoray dawadii ku habboonayd ee indhaha kadib markii dawadii uu qaatay Xamdaan dawadii saameyn ayay ku reebtay waxaanay ku sababtay inuu indhabeelo halkay sidoo kalena dawadii saameysay maqaarka sare ee jirkiisa hadalkaasi wuu murugo galiyay gabadhiisii waxaanay sheegtay gabadhu inay jeceshahay noloshana aanay ku cidlaynayn waxay Kate Rosan ku caanbaxday quruxdeeda waxaana ahayd mid dhalinyaradu ku wada rayoodaan ugu dambeyntiina waxay go'aansatay inay guursato ninkan aflaanta matala ee lagu magacaabo Hell Deed inay go'aankan qaadato dad badan bay ka yaabisay waxaanay dadku isweydiiyeen maxay gabadhan quruxda badan u guursatay odagan cajuuska ah waxaana sheegtay inay qalbiga u furtay jeceshahayna intuu jecel yahay in ka badan kuna faraxsan tahay noloshooda qoys waxa uu go'aansaday duqan daadiisu kor dhaaftay 100 sano inuu aroos u dhigo saaxiibtiisa kadib markay xiriir soo wada lahaayeen 80 sanadood waxaana xafladda arooskooda ku dhigteen beerta guriga waxaana ka soo qayb galay xafladda arooska 8 caruur ah oo dhaleen iyo ku dhawaad 50 qof oo ayay iyo awow u yihiin iyo 35 qof oo ayay iyo awow labaad u yihiin iyo 20 qof oo ayay iyo awow saddexaad u noqonayaan waxaanu yidhi wadaadkii isu guurinayay inay lamaanahan yihiin kuwii ugu weynaa ee abid isu guuriyo waxa uu ninkan Tom lagu magacaabaa kula nool yahay labadiisan xaas nolol degan oo farxada xaaskiisa koobaad ee weyn waxa la yiraahdaa Balenda waxaana jirta 44 sanadood xaaskiisa yar ee kalena waa Triba iyadna da'deedu waa 22 sano waxa la yaabka ah waa inuu ninkani guursaday xaaskiisa yar isagoo hore u yaqaan iyadoo cunug yara takasi la yaabka badanna tahay in gabadhiisa weyn ku hambalyeysay gabadha cusub markuu guursaday iyadoo walibana ku faraxsan waxaanay saddexdooduba ku nool yihiin nolol farxada gaar ahaan markay Triba dhashay cunug yar oo loo bixiyay Catherine waxaana sheegan labada xaasba inay hooyo wada noqonayaan cunug taayar qof kasta uu iska jecel yahay inuu nolosha la wadaago qofku dooqiisa ku helo halka aanay markasta dhicin inaad hesho qofka aad doonaysid haddaba dadka ku guuleystay inay helaan qofkay doonayeen inay nolosha la wadaagaan waxa ka mid ah Ferolanda waana gabadh da'deedu tahay 22 sano waxaana Ferolanda go'aansatay 2015 inay safar waxbarasho u aado Korea si ay luqadda Koreaanka uga soo dhigato jaamacadda qaranka Korea ee Seoul waxaanay maalin la kulantay ninkan photographer-ka ah oo magaciisa la yiraahdo Jane waana iska heleen waxaanay saaxiibeen dhamaadkii 2016 labadooduna may ogeen in xiriirkoodu ku dhamaanayo kala duwanaanshaha diimaha ay haystaan qoysaskoodu laakiin gabadha Ferolanda waxay wajahday caqabadihii haystay oo dhan waxaanay go'aansatay inay magaaladeedii u safarto si ay qoyskeeda ugu soo qanciso guurka ugu dambeyntii 2017
waxa uu arooskoodu ka dhacay Korea halkay guurka ka hor soo mareen dhibaato badan waxaanu guurkaasi caddeyn u yahay inaanu jacaylku aqoon dhaqamada dadka daawada haddaad ka heshay muuqaalkan like saar subscribe na taawo si ay ku soo gaaraan markasta oo soo gelino muuqaal cusub mahadsanid